جالال كوسو دوادا يوتيوب كاين توي شو ما انت برنامجكنا waxaan ku eegaynaa xeerka jinsiga iyo waliba injiilada waxa kan ayaa ka shaqeynaya gacan reer galbeed weeye waa inaad garataa jaalle arinta ayaan ku falanqeynaynaa qayb dambe waxaan jaaleel faalla uga bixinaya kufsiyada Soomaaliya ka dhaca ee soo laalaabtay ee faraha badan kaalinta injiilada wax way qood haweenka iyo waxa u doona qoladii qaybta ay ka yihiin baan tilmaamaya hay'ashee markan waxaan ku hormarnaa raadiyoga ayaa ka waramaya dhalinyaro difaacay sida la leeyahay xeerka jinsiga waa kii kalmada baarlamaanka Kuuriyaan dhalinyaro baraha bulshada ka difaacay Facebook YouTube meelaha ayaa bilada la guddoonsiinaya aan dhageysan muxuu leeyahay waxaa galabta magaalada Muqdisho lagu qabtay kulan mahadcelin ah oo ay soo qaban qaabiyeen hay'adaha kala iida iyo Somali Women Agenda ujeedka kulanka ayaa ahaa sidii loo abaalmarin lahaa dhalinyaradii sida xoogan baraha bulshada iyo goobaha dadku isugu yimaadaan ugu taageeray xeerka jinsiga oo haatan hor yaala golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya waa maqlaysaa jaaleel dhalinyaro markaas taageeray xeerka jinsiga ee markaas hor yaala baarlamaanka dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa markaas bilada la guddoonsiinaya waa xeerka galmada ee baarlamaanku iska diiday fiiriya dhalinta waanad garata bilada la guddoonsiinaya hay'ada magac la baxay oo Soomaali hebel iyo waxba lagu sheegay dabcan hay'adaha ayaa sida yeelahaya dhalinta qaar ee ma garanaysaa waxa difaacay garaya ay bilada la guddoonsiinaya arinta waxa laga leeyahay in ma garanaysaa wax weyn dabadeedna hay'adii reer galbeedka soo diray in loo geeyo video iyo ma garanaysaa barnaamijyada dadka ka hadlaya oo la yiraahdo waa ka bulshada Soomaaliyeed iminka hore u socday xeerka jinsiga iyo kufsiga iyo waxaas laga hadlayo waa galmadii waxa in la socota garooya jahlayaan way si hadlayaan qaar kamid ah haweenka ma garanaysaa barnaamijka difaacaya aan dhageysan maxay haweenka iyo qoondadooda sharciga xuquuqda caruurta ayaa kamid ahaa waxyaalihii la qabtay waxa kamid ahaa sanadkii la soo dhaafay iyada oo la marayo waxa la sameeyay talaabooyin lala yaabo ciidamada oo iyagana la shaqeeyay hay'adaha booliiska la shaqeeyay jeerasha oo aan la waa maqlaysa jaaleel booliiska la shaqeynay hay'adahaas aan la shaqeynay dabcan waxay kala shaqeynayaan waa maxay faarinta kufsiga iyo waxaas la aan garanaysaa dabcan xuquuq haween ka maqan tahay oo haweenku ma dulmayeen ha ma diidanin laakiin in laga badbadinayo oo ma garanaysaa wax siyaada la raadinayo oo ma garanaysaa arrimahan tan siday ahayn ma garanaysaa dhanka la aaday ayaan jaaleel barnaamijka ku bayaaminaa nin kale oo kamid ah ragga odayaasha ah ayaa ma garanaysaa si weyn u difaacay xeerka jinsiga xulay waa markay noqoto sida xeerkan ku dhacday xeerkan waxa weeye waa la dilay haddii la dilayna dadkii uu u gurman lahaa ya wixii gaaray anigu maanta waa xisaabtan cusub aan galaynaa oo dastuuri aan galay waa maqlaysaa jaaleel xisaabtan cusub baan galay buu leeyahay oo markaasi waxa weeye dastuuri ah sida uu leeyahay dabcan wuxuu aad u difaacayaa ninka kani oo ma garanaysaa kaarahaya waxa weeye ma garanaysaa xeerkii galmada iyo waxa la xiriiray baarlamaanka la horkeenay oo la yaab ka lahaa dabcan jaaleel injiiladu waa koox mashaakil ah waxa kana ayaa qayb weyn ka ah marka injiilada aan ku soconaynaa oo soo laabanaynaa kufsiyada Soomaaliya qaybta ay ka yihiin dabcan ay ugu abaabulaan oo ka dambeeyaan oo wiilal kufsaday gabar baa la kufsaday qof waayeel la kufsaday qaybta ay ka yihiin waxa kan ay cunna ku qaataan tilmaamahay hay'ashee jaaleel maadaama aan ku jirno injiilada barnaamij la yaab la ayaan halkan ku soo bandhigaynaa oo maalinta faraxalka oo 15 Oktoobar shalaytan weey ayaa qolal isku yimid waa la xusaaya hay'ado fara badan ayaa markaas jaaleel xustaanka qayb galay tusaaladan soo qaadanay jaaleel waxa arkaysaa hadda footadan halka arkaan fiiri waxa arkaysaa action against hunger ayaa soo diyaarisay wax hay'ado ku tixaan UK8 BRCIS waxa soo dham arag hay'ada ah ayaa wax ka shaqeynayaan global hand fashion day oo October 15 ah maaragta gacmo dhaqashada dhamaan ay ku soo qoreen marka jaaleel waxa arkaysaa waa maalintii falaxalka adduunka ayaa la shaqeynaa injiilada ku soconaa aan dhageysan wariyaha barnaamijka ka diyaariyay isna sida uu markaasi wax weey barnaamijka u dhigay lagu maamuusayay maalinta faraxalka adduunka oo la xuso maanta oo kale 15 Oktoobar ayna soo qaban qaabisay hay'adda la dagaalanka gaajada iyo horumarinta nolosha ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho ee waa maqlaysaa jaaleel maalinta faraxalka adduunka ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho dad fara badan baa ka soo qayb galay waxa soo diyaarisay hay'ad oo aragta fiira waa qaybtiin joodi waana la socota hay'adii reer galbeedka culimada laga soo qaadanay action against hunger aan ka hadalno faraxalka adduunka annaga faraxal marka aan ka hadlayno islaamka muxuu noo sheegay
falxalku waa nadaafada fiiri safiina salaadka iyo safiina najaadka oo quraanka kariimka dadku markay dhameeyaan samaanka maxaan ku baray jirnay wanaaga dahaaradu ay leedahay garanaysaa xadiiska nabiga muxuu ahaa oo ka hadlayay nadaafadu qaybta ay leedahay an-nadaafatu nusfun min al-iimaan sutina laha fiiriya garo anaga waxaan hadda ay reer galbeedku noo soo wareejinaya waa wixii marka hore ay naga qateen nadaafada samaanka fiiriya marka aad haweeneyda aad u tagto qubayso oo janaabadii iyo waxaas ku soo xiriirtay waxa laga yaabaa reer galbeedka halkan joogo in magaranaysa ay sabab qubaysan baxta iska daayay reemiyooda 1400 sano ka hor aan bilowna anaga wax kan aad arkaysid nadaafada hadda marka hay'ad lacag ugu soo qaadanayaan handi fashion day iyo waxaas oo 15 Oktoobar iyo waxaas cunna lagu raadinayo NGO leeyahay dabcan NGO leeda marka aan ka hadlayo wax ay la mid yihiin wahabiyada dadka Soomaalida ah waa inay fahmaan koox walba oo qatar ku ah waa inaan ka dheeraana qoladaatan way ka dareen kuwa sababta kuwaasna balaayay ka dawreeyaan qaraxda waxaas wax la sheega ma waa musiibo bulshada haysata laakiin kuwa kanana bulshadii oo dhan waxay ka soo qaadeen waxaan jirin wax aab leh waxa loo baahnaa fiiriya falxal si looga hadla kara bulshada Soomaaliya afar labaad dadka salaad tukanahay oo shanta waqti tukanahay gacmahooda dhaqahay ay falxal laga hadlahay tan nadaafadu dhashana waa aragtaa jaaliyal injoolida ku jirnaa waxaan soo laabanaynaa qoladii aanu ka hadlaynay oo xeerka jinsiga iyo arinta galmada ka sheekeynay qoladaas waxay yiraahdaan waxaan u doodnaa haweenka xorriyadooda xuquuqda haweenka xuquuqda aadana dabcan haweenka Soomaaliyeed dhibaato lagu hayay way jirtaa ma garanaysaa arintaasna waxay u baahan tahay in laga hadlo oo wixii ay taban hayaan laga daweeyo aan waaqaba marba oo wahabiyadu dhibaato fara badan xataa ku hayaan gabdhaha oo ognahay taa oo ama baabka weyn oo lagu raray ama la yiri ma hadli karto ama banaanka uma bixi karto waxyaabo fara badan iska jira taa ka hadlayna hadda laakiin haddaan fiir waxaad arkaysaa in iminka reer galbeedku ka waalahayaan dumarka Soomaaliyeed haweenka Soomaaliyeed xuquuqooda ka maqan waxaasayna ka maqan ayaa leeyahay waxay ku hoos gambanaya xeerka jinsiga hadda tan oo haddaan u eegno jaalay waxaad arkaysaa wiil la kufsaday intee lagu arkay dhaqankeena Soomaaliyeed ma ka mid ah gabar la kufsaday la arkay nin dabac ka galay gabar haweeney dabac nin ka galay caado inkastoo dhaqan xun ay tahay in gabar la kufsaday haddana wax magaras aanu horeyno leenahay ma garanaysaa laakiin wiil la kufsaday markaysa fiiriya waxa kan waa NGO leh waa inaad garataa dadka Soomaaliyeed caado uma laha gabdhooda way xishmeeyaan qofsiga iminka faraha ka batay ee arkaysid waa wax la abaabulo NGO abaabuleen way soo diyaarinayaan xiraq xooti loo dhacayaa gabdhaha laga kufsanaya dabadeedna ribooday sameynayaan way qorahayaan Nairobi u dirahayaan ama xaflunta New York ay ku leedahay qaramada midoobay haweenka Soomaaliyeed waa la kufsaday kufsigaan lagu soo batay kufsigaan haysta intaasna xirma tag lacag loo soo dirahayaa bulshada wacyi galiya dabadeedna waxay sameynayaan haween ay leeyihiin waa la kufsaday dabcan oo marka horena wajigooda naga qariyay waagi hore xataa way isqari jireen dadku ogeed video laga duubay oo hadda laftigeeda qaabka ay u dhacaan aad ogtihiin in dad la soo diray ay dadka waxa kaga geysaa in ma qabo shan jir ninka kufsaday muxuu ka faraadinayaa wax ku yaalo oo laga naageystaba kuma yaalaan garaya fiir meesha in wax ku jiraan baa rabaa in ku fahansiin wax dhacdo markaa in markaasi wax weey ay lacag soo qaataan lacag markay soo qaataan ay leeyahay haweenka la kufsaday ayaan ma garanaysaa bulshada ku soo celinayna si ugu soo celinayaan xarqaan la baraa iskoolaha loo diraa waxba u qaban maayaan hal maalin isku imaanayaan sida kuwa hadda tan arkayso warbixinta laga sameeyay video laga duubahayaa ay xarqaan toleysa magaran xataa qof kale laga yaabaa inuu tolahayo wajiga looga aadiyo video isku ka kabeen iyo barnaamijyadaas ay hadhow Nairobi u tagayaan cunay ku raadinayaan sidaas ugu soo qaadanayaan kufsi ayaa ka dambeeyaan qaba waxayna la mid yihiin wahabiyada argagixisada ee arki jirteen ee carabta inta taga xajka xilliga la gaaro lacagaha ka soo qaata fiiriya oo masaajidda Soomaaliya ka dhisan inta yiraahdeen oo masaajid meel ka dhisan video ka duubaan ula laaban jireen sanadka markay xajinayaan oo ninkii lacag soo dirta carabka leeyahay hada huwa masaajid هذا لك إني هذا مقرنساي وعرب كانوا يقولوا ما شاء الله العك فربنا ونسبحي تبع إلى درتي مقطع والحماني وحيتها قرن منه وهي قريب بمالح لكن كل واحد الله بح صدقوا نيست فيريا لكن محلوس سمي هذا مركا وهابيد النوع عسيد إنجو لي هيد تبع وإنجو إلى فتوت لا صحيح مشروعية كو قرابته صدقان دي بيننا ما أنت عيد أنا حوالان قلنا أي حوالان فربنا أنت لك عليهم كمالك الجيل ولا أكيد ورمانته ku xigto oo aan ciid ahayn ma dadka hilibka siisan dadku u baahan yihiin waa NGO leeyahay inay garata kuwaas la mid yihiin kuwa kale kuwaas dadka dilaan rabshaan qarxiyaan kuwaanina sharafta dadka la dagaalamaya arka jinsiga arka galmada arka kee kufsi balaayo dhamay ka dawreeyeen fiiriya aniga dadka NGO leeyahay aad baan dareen uga qaba mar walbana waa ka hadlo doona
waxaan rabaa inaan iraado dadka Soomaaliyeed waa inay fahmaan waa inaan meel dhex ahaataa Soomaali ah wanaagsan dadkiisa iyo dalkiisa iyo dadkiisa iyo bulshadiisa jecel dhanha aadan waa arka Soomaalida inta badan hal dhinac isku jiiraan qolo injiilada ah iyo qolada reer galbeedka ay aad ula dhacsan ka dambeeyo qolo dhinacaan isku jiraan waa wahabiyadii argagixisada ahayd iyo ihtisaam shabaab baayo dhameeyay war qof Soomaali inaan noqoto Allah kugu duwo iska diid mid reer galbeedka diid tar arbeedna diid Soomaali ahaan aw Soomaalinimadii inuu garan maayo dadka Soomaalida wax u diiday war dadka kan hay'adaha ah cunada ku soo qaadanaya ee mid carabta kala yimid afkaar kale iyo diin iyo wax aad lahayn ee dhaqan aad lahayn qamiis iyo jalbaab weyn iyo astaan aad lahayn ku gelinaya afkaada Soomaalida la dagaalamayo Carabi iyo Hebel iyo Abu Hebel la baxay iyo magac xuma Carabeed ku wada bixiyay kaasina waa musiibo kan kale ee reer galbeed hadda farxala kula fiiriya dhaqanka islaamka ah samaan anagu aanaysan farxalka lagu barahaya xeerka jinsiga gabdhiina ku fsatiin saanadiyeshan fiiriya inta waxay daba jooga kuwani sharafti qiimihi iyo karaamada ay ayaa la dusinaya kuwana diinka cusub oo habiye argagixisa ku saleysan shabaab iyo ihtisaami waxa arkays yaa lagu keenay marka dhibaatadu waxay ka taagantahay bulshada Soomaalida dhalintahay waxa fahmaan labaas kooxadan haysatay labada kooxood baan ka xirowno maaha inaan koox ka tagno oo reer galbeed ka tagno carabta u leeqano ama carabta ka nimaano galbeed aadna Soomaali noqo dhaxda soo istaag waxa tahay muuji afkaartaada waa inaad wadaagtaa dabcan baan loo ogid markii uu ka hadlayay Shiinuhu watii uu lahaa ma ogalin diime kala dad kale ka yimid sababtoo wuxuu ogyahay diime dad kale ka yimid markuu diiday ujeed kale ma wuxuu leeyahay haddii afkaar diimeed dad kale ay wadaan ay ku keenaan sirdoon u noqonayaan way ka dambeeyaan tusaale soo qaadan haddaan eegno wahabiyadu wax aad ugu yeesheen iminka isla markaana daba joogan wadamada wahabiyada hirgeliyo Sacuudiga Imaaraadka aad ugu dabacsan yihiin waad aragtaa khaasatan Sacuudiga wax walba uu yiraahdo laga mid hadlahay Suudaysiya maalooda maqlaysan jaaliyad wax amaana hayay Israa'iil kama isaacdo waadada wahabiyada argaysa arkraysa wala qabaan ayaa sameeyay fiiriya koox walba oo koox diimeedyada dadka sameeyay ka dambeeyaan waa inaan karataa wahabiyo sida tusaale soo qaadan Masar daan u fiirin aqwaan muslimiin ka hadda Soomaaliya jooga islaaxi waxa waxay aad u cabseen Masar oo dhan u yaqaana mid Soomaaliya wuxuu ka yaqaan laga waxa la yaabaa wiilka islaaxa inuu si fiican u yaqaan gobolada wadanka Masar Iskandariya iyo Qaahira iyo Sharm el-Sheikh iyo magaalooyinka ay kala fog yihiin wabiga Niil sida uu kala fiican beero waxaas inuu yaqaan oo islaax waa aqoon muslimiin Masar ay ku xiran yahay waa meesha laga keenay ku diimeedida marka meelay ka yimaadeen wahabiga Sacuudiga sidaas u aaminsan yahay waa inaad garataa fiir marka anaga aan ku diimeedida diidayno oo kooxaha qaraada leeyahay cid walba waa inaan diidna anaga waxaan haysanaa diinta islaamka suufiyo tasawuf aabaha awowis abkowis kii kooriyay diiniyada iyo wixii aysan ahayn sida weey dadka fiiri dhalinta Soomaalida xataa jaamacadaha markay baranayaan maxaa jaamacadda وانا سيج اسميسا بحث سميسا عالم aad fahantaa waa inaad wax akhrisaa tusaale hada marka aniga hadlahay Axmed Tooyana walaalka ana okay hatta qof wax barta tahay maaha inaad sheekh hebel ama oday hebel ama qof kale ku xirnaato wax baar wax tabagal Axmed Tooyana wax ka hadlay okay waa journalist Axmed Tooy waxa uu sheegay maxaa ka jira aqoon muslimiin iyo islaax iyo waxaan ka sheegay hadda oo sida ay Masar ku xiran sida ay ma yihiin wahabiyadu sida uu sheegay ma yihiin argagixisada ihtisaam iyo shabaab iyo isku kooxmay maxamed waa sheekh buu yahay waxaas waxna daba gashaa wayna maskaxda ka shaqo maskaxdaada maxaa Ilaahay ku siiyay adiga wiil yar baa tahay maskaxda maxaa Ilaahay ku siiyay inaad ka shaqaysiisid adaa iska leh idna kula malahan dhibaatada ugu weyn oo koox diimeedada Soomaalida ku sameeyay waxa weeye dhalinta inta badan wax ku xiray ustaad hebel qof ay ku xiran yihiin wax uu yiraahdo ayaa u ah ma keeni karo go'aan iyo garasho iyo aragti hadda aniga Axmed Tooyo koox diimeedada kuma jiro kooxna kama tirsan daas waa aniga codkay uu sareeya saan doonaa hadla markaan hadlaaya xataa waa aragta iskaan tuurhaya saan doonaa hadlaaya waxaan doonaa soo jeedinaya garashada iyo garaadkaas wax igu wacan waa inaad garataa koox diimeedada kuma beer dhalinta koox diimeedada kuma jiro kor uma hadli karaan ma fakari karaan xataa male maskax ay ka shaqeysiyaan hadda mar walba waxaan ku soo qaataa barnaamijkayga oon iraada u fiirsaya maskaxdaada ka shaqeysii garaadkaada adaa iska leh aqligaada adaa leh fakir ayaa rafiiriya waxaan ogahay in dhalinta la xiray waa la xiray heed taqaan furo iyo qoful baa loo soo qaatay qof waa lagu jab alisi waa lagu jabshi garaya dhalinyaro wuxuu aaminsan yahay sheekh ama doctor ama ustaad qof u yaqaano oo wahabi ah argagixisada balada xadashay ama kiyo kale oo ka sii darnaay ee islaax iyo aqwaan muslimiin ustaad hebel ayuu ka dambeeyaa ustaad hebel ayuu leeyahay waa qof dhalinyaraya
that's why aad u arkay hada Soomaali fiiri hogaamiye sababta u arkay laadam taqaan hogaamiye waxa la rabaa qof miska garaaci kara oo ma garanaysaa malaayiin qof ah ku sayri kara ma garanaysaa hoosa hogaamiye ma soo bixi kara hada kooxdiimada hogaamiye ma soo saaraan qof la liiday tusaale ahaan qofka marka hore ba la abaabinahay la yiri hebel gudoomiye ku ah oo hebel kale ka dambeeyo hebel kale uu aaminsan yahay marka inaad garata waxaan isku dayi doonaa barnaamijkan arrinta ka sameeyo oo garanaysaa aan jeclahay aan garanaysaa faahfaahiyo hadii ay yiraahdo barnaamijku ila fogaaday dabcan hadda hal tago ku sii fogaanaya ugu dambeyn aan ku soo laabano barnaamijka gabagabadii waxaan leenahay xeerka kursiga iyo galmada iyo balada iyo wax arkay injiga ka dambeeyo gabdhaha Soomaaliyeed la kufsiyo ma ogol maya mamnuuc gabdhaha wax xumeena waa qiimeena waa qadarina uma ogorin marnaba laakiin reer galbeed iyo afkaara iyo dad lacag la siinayo ee Soomaaliya joogo NGO ku shaqeynaya oo inta ka shaqeynaya in bulshada Soomaaliyeed siraf dilaan marnaba ma ogorin Quraan oo hadlaya waa diidayna waxayna noola mid yihiin wahabiyada argagixisada kuwaasna dadka dilaan dhibaateeyaan diin cusub oo diinteena ahayn iyo dhaqan aan lahayn oo kii carbeed oo liitay ay bulshadeena ku wada mana aqbaleen kuwaan NGO-leedahna waa la mid adiga waxa la rabaa mar walba inaad Soomaalnimo fakarto islaamka aan haysanahna waa suufi tasawuf awooga iyo awoogisku ahaa waa inaad sida aad u fikirtaa taasa waxa ay tahay mid rasmiga ah ee Soomaalinimada iyo dadnimada aniga Axmed Tooyaan waxaan ahayn sida marna ma ogid afkaarta reer galbeedka mana qaadanayno taarbeedna hada warkeeda haba sheegin waa tan diidnay carabtuna haddii aanu fiirino waa dadka ugu nacab bulshada Soomaalida dabcan dadka wax akhriyay ee wax bartaan arrinta way og yihiin hadda kuwa ay gacanta ku dhigeen oo ay mar hore gacan marujiyeen oo magaranaysa anaga naga tirsan Soomaali ah oo madow oo adiga afkaada ku hadlahay laakiin carabka ah ee liitay adoonka ay ka dhigteen ka hadlameynay qofka Soomaaliga garaadkiisa sareeyo ayaanu sheegaynaa jale inta ayaan ku soo gabagabeynayaa jalayaal magaranaysa barnaamijkan si kooban u hadlayna xeerka kufsiga iyo magaranaysa arrinta wax weyn NGO-leeda oo galbeedka inta badan ku xiran jalayaal inta aan dib u kulmi doono waxa sida ay nabadgelyo jalayaal